isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal Muuse Daahir Kaahin Coofle oo maanta xafiiskiisa gudaha magaalada Boorama ugu waramay telefishinka madaxa banaan ee Raya TV ayaa waxa uu ka hadlay oo uu ka warbixiyay shaqada ama hawsha ay qabato wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal. isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal Muuse Daahir Kaahin Coofle oo arintan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa warbixin kooban idinka siiyo xafiiskan wasaaradda cadaaladda ee gobolka iyo hawlaha uu qabto waxa weeyaan xafiisku wuxuu wakiil ka yahay wasaaradda cadaaladda dabcan ee qaranka ayuu gobolka uga yahay wakiil waxa kamid ah hawlaha uu qabto oo uu xil saaran yahay nootayooyinka xafiisyada nootayooyinka sharciga ee ka furan gobolkani waxa kale ee uu xil saaran yahay xidhiidhka laamaha kale ee dawladda oo xidhiidh la leeyahay lana sameeyo xidhiidh joogto ah mar kasta waxa aan si gaar ah aan ula sii xidhiidhnaa saldhigyada booliiska oo xagga carruurta yaryar aan qaangaadhka ahayn sameeya haddana ku xadgudba sharciga ku xadgudba aanu xidhiidh kala sameynaa. waxa kale oo aan xidhiidh gaara la leenahay sida xeerka ay ku shaqeeyaan wasaaraddu ku shaqeyso aanu xidhiidh gaara la sii leenahay xeer ilaaliyaha iyo maxkamadaha iyo laamaha kale ee bulshada oo ay deexa kasta oo khuseysa laamaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay wax kasta oo khuseeya oo xagga bini-aadanimada iyo xuquuqal insaanka iyo dhan kasta ku saabsan ayaan iyagana kala xidhiidhnaa laamaha bulshada ee gaarka loo leeyahay. waxa dabcan halkan haddaan idin tuso nootayooyinka qaranka hawlo badan ayaa ka dhexeeya xafiiskan kala wareejinaha ay sameeyaan guurtada iyo guurtada waxay u leeyihiin buugaag ay ku qoraan buugaagta ay ku qoraan annaguna waan ka daba jeegaraynaa oo waan ka daba xaqiijinaa warbixintoodana xagga waxqabadkooda warbixin bay ka soo gudbiyaan mar kasta waxay u gudbiyaan sidaas oo kale waxqabadkooda wasaaradda maaliyadda sidoo kale mar aan wax ka weydiinay isuduwaha tacadiyada ama dhibta ay kala kulmaan maxaabiista jeelasha ama xabsiyada ku yaala gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu ku anaga kolkaan laba u kala qaadno dadka saldhigyada lagu soo xidho carruur yaryar oo aan qaangaar ahayn iyo dad waaweyn oo qaangaara ayay u qaybsamaan. carruurta yaryar ee aan qaangaarka ahayn iyaga wadda gooniya ayaa loo maraa oo lagula dhaqmaa qaab gooniya. qaabkaas waxa weeyaan inaan la dhaafininba saldhigga booliiska kol haddaanay qaangaar ahayn halkaasaa xal lagu xaliyaa arrintooda looma gudbiyo xeer ilaalinta iyo maxkamadaha iyo xabsi looma gudbiyo iyaga halkaasaa lagu sii daayaa oo xalkooda lagu dhammeeyaa. wixii qaangaar ka weyn waa la gudbiyaa dembi baarista booliiska waxay u gudbiyaan xeer ilaalinta ilaa iyo maxkamadaha ilaa iyo xabsiyada kolka loo gudbiyo. Sakariya Saxane, Raya TV, Boorama.